السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دو جنال كي جايان قاب دون ومر كلا يسكسون نقد ونكسن يمقال كلا عصب فضلا هذا يقول عصب تهاي سبسكرايب إيسار من نقص حبتي إذا دوري إلى جوكتنا مقال كان لايك إيسار وأنا ما تنتين دمان ولا الله كحرن جنال كي جا يوتيوب فيسبوك بيج كي جا ميل والبواد جوكتين وحن إلهي ذيك جرجينا يعني نبض يعرف ما دينا تكونوا ولا تان أصحاب تعصب يقصوا بيت جنال كي جا فيسبوك بيج كي جا وحن لايك عم فرون كسر دواله channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo sheekadii Fuaad iyo Samra ee jacaylkii dhindhinka ah oo bixi waaba dhigay oo noo mareysay qaybteedii labaad waxay qaybtii koowaad ku soo gabagabaysmatay Fuaad gabadhii ay isjeclaayeen markii ay dariiqa ku kulmeen saaxiibkiis oo Fuaad la waxay oo Fuaadna uu yiri indha adka abeesaha ku ruugu weydo matiya hadlayda gabadhina ay tiri waryaa maxaa balantii iga baxday 3 sano oo kaamilan jacayl kula jilaay maxaa saan igu gashay ayuu Fuaad wuxuu yiri xabiibti kuma nici doono ee aabaha inuu kow iga siinaayo ayuu abtigay ii sheegay abtigayna wuxuu yiri waa inaad magaalo kale aad u safartid oo aad aadid gabadhana waa lagu soo diiday aabaheedna wuxuu ogaaday inay xiriir leedihiin haddii gabadhaas dib dambe lagu arko كو على سينا أو نفتا لوجود عفنايا ساس لأجلجد دكان كلام مجالك كلا كلها هاي وإنا كشقيسة كبعدي مركي يقف بقف كلا وأفكي سكوجادي إلا بدو ذب القيامي أيا وحد عذي إني وعد كمرين محيهات ود يعلف وحن أهين إن مكلا وعيانو جعل كينا كوين كبعدي وحد بلن لجو قلي إني لبدو ذو إلك جلان مؤجي inaysan isweyneynin gabadhii shoppingkeedii adduunkeedii soo gadatay aabaheeda uu imaatay waxay tiri aabo maxaa la ii qiyaamay maxaa wiilkii aan jeclaa ee dunida aan ka calmaday ee intaasoo sano aan la soo sheekaysanayay aabo odaygan aa iigu badashay adiguna ma dhaqaale inta lagu tusay ayaa aaba ii iibsatay aabihii wuxuu ku yiri aabo anigu kuma aanan iibsanin odaygan jamaal ah asaga ku soo doontay adna waa aad aqbashay wiilkiina wuxuu iigu sheekeeyay in uusan munaasib kugu ahayn uu cararay xilligii aad adiga iyo asagu balan lahaydeen waxay tiri gabadhii Samro aaba odaygaas waa qaa'in waa beenlow waxa uu sheegayana wax ka jirta male wiilkii asaga musaafuriyay wiilka xataa dhaqaalo intaasoo san u aruurinayay si ani asagu aan isku guursano aaba waxay tiri meel laga noqdo ee sheekadu leedahay hadda waa la ii faraanti geliyay ninkan meher iguma dhicin aabo macaano waa laga noqon karaaye ninkan anigu ma rabo wiilkaasaan habeen jeclahay maalin jeclahe aabo wiilkaas la ii guuriyo aabihii wuxuu yiri gabadhaydii soo dhawow ninkan waa saaxiibkay waa nin ila kiin soo koriya hadda odaygan jamaal ah waa nin xaasla ah waa nin caruur leh gabadhan yarta dhaqaalu ku iibsana ogle ma soo xasuusato qisadii oo idaacada Shabeelle 12 saac galabnimo laga soo deey jiray ee gabadha yar loo guuri jiray ee ogle gabadhiisina oo Allah u naxariistay marshaalame ee qofkii loo guuriyay hada sheekadii waa aan iloobe adigu way kala badashteen ma fahanti oglena gabar yar la siiyay oglena gabadhiisii oday waayeel kale uu siiyay waraya ogle yaa soo xasuusta waayahaas oo 12 saac galabnimo magaalada Muqdisho markii la gaaraba idaacada Shabeelle dhagta iyo u taagnaa jirto oo qisooyinka laga soo deey jiray riwaayadaha galabtii yaa dhageysan jiray farta soo taaga waxay tiri markaa aabe odaygan cajuuska ma rabee taariikh aad dhagaha faraha gashatiin aa igala kulmee haddii kala aaba odaygan ma rabo wiilkan jeclaayaan raba odaygan aabe ma barabo ma bal ii gurgeynaayo aabe wuxuu yiri gabadhaydii soo dhawow ninkan waa saaxiibkay waa rafiiqaygi dad iigu dhow waa nin ilaakiin ko siinko yaani markaa koreyseen caawin jiray waa nin hantiile ah waa nin kugu soo baxaayo ninka haweenaa ku dhaqi karo ma ku rabo baan wiilkaas dhalinyarada haddii shalay odaygan uu igu qiyaamay hadda aniga baraali ka ah ninkan dhaqaalu siiyay dhaqaalihiisii ma gudi kari lacagan kugu qaatay wiilkaas dhalinyarada asagaaba ninkan hoos joogo wuxuu haysta mal odaygu wuxuu galay qudbo iyo tacsi waxay tiri saas miyaha waayay tiri aabo waxaad ka heshid waxba iga siinin odayga aad ku qanacsantahay inaad ii aqal geysid soo maahan waayaha ana aqaanay tiri shaqo odaygii maalmaha kamida gabadhii balansatay
waxay tiri xaajigayga mustaqbalka oda cajuusow oda cajuusow waxaan rabaa inaan kula kulmo ey waa kuu jeedaa meesha iisoo indho weynaanine abaay canjeelo dubtooy abaay malawax dubtooy yaa abow adigana iisoo indho weynaanine show taraagaad igu wadataaye ama buugaad igu dul akhrisane ama jiimaad joogtaaye meeshayaa la iisoo indho weynaanine waryaadahe faraha laga shaqaysiiyo laabo oo muuqaalka like saar haddaa facebooka igala socotid iyo hataa youtube channelkayga igala socotidba meesha ha iisoo indho weynaanine ha iisoo indho yaraanine qaybta indho yartana meesha kama maqnee laabo oo faraha ka shaqaysiiyalla muuqaalka like ii saar sheekada waaba macaansanaysin waaba idiin jeedaayey malawax dubtooy muuqaalka marka hore like ta saar kabacdii waxay tiri aw xaaji cajuusow waxaan rabaa inaan kula kulmo waayaho yiri soo usoo kajab lahaa waaba isla quman yahoo gabar yaroo quruxley ahoo waxaan ku iri xuural cayn ahoo oo wuxuu rabaa inuu nolol la bilowdee islaantiina waa waayeelowdooba taagan yahay gabadhiyo meel kula kulmay waxay tiri maqaayad hebel waa inaa iigu imaatid waayaho yiri ku aqbalay oo ku ajiiba isagoo isla talo waxay ku dhihi doontaa guriga wax yar ka bedel may ku dhihi doontaa lacagta badi may ku dhihi doontaa tan wax walba ay ku tiraahdo ziyaadi waaba aad siyaadee ma adigaaba diidi kartidba kabacdi waxaa dhacday inuu sidii usoo ordaay iyaduna ordayd in meeshii lagu kulmay waxay tiri oday soo dhawooway tiri warku siiya qaa'in kabciya madiina gubaa tahay anigay tiri markaa isoo doonaysay adiga inaa isoo doonato maysan ahayn ballanta fu'aad ku soo diray wuxuu ku yiri waa inaad ii doontid gabadhaas adiguna wiilkaad abtiga u aheyd aad dhabarka inta ka toogatay aad adiga isoo doonto odayo wax ma kuu sheegaa anigu habeenna kuma rabo maalinna kuma rabo dee dahab waxaa ii gadana haddaan faraqa kuugu shubaa gurigaagina weli kaama teginoo ani adiguma aqalgelin aniga wiilkaa abtiga u tahay aan jeclahay asaguna i jecel yahay god lee geli karaa ma ogiye ani adimku guursanaaye wuxuu yiri anigaa ku jecel maalin anigaa ku jecel muxuu wiilkaas dhallinyarada kuu sheegaa beentiis waa kadaab waaye anigaana wax alle waxaa rabti kuu suubinaayo habeenna guurkaaga kama noqonayo maalinna kama noqonayo war maa ka daysiday tiri war heedhe ma caafimaadkaa ku dhibaayo maad ka daysid war ma nolosha adduunaa nacdo odayo maya meeshiyaa laisku hanjabay odaygii jiiraluu soo galay meeluu ku ogyahay oday kale aabbaheedu wuu imaaday wuxuu yiri gabadha waa inaa igala hadashid gabadha waa inaa indhaha u guduudisid oo tiraahdid ninkaas ninaanan ahayn kuma dhaqi karo kumana noqdo xaaji odaygii gabadhiisii oo qabsadee qoloo la galee wuxuu yiri far duca iyo far habaar anigu odaygaan lacagan ka qaate awal markuu kusoo doonanayana anigu dee ninka kale aa la soo heshiisa war uma haynin waa aqbalaa tiri intaasoo bilood asagoo aa isku doonantihiin kabacdiyaa ogaatay in odaygaan kusoo doonto gabadhaydiyey kelmad iguma soo celi kartid lacag waxaa rabtid madaxaaga iyo majahaagu ninkaan dul saara laakiin waa kula aqalgalaa saas miyaa aabbahaa maa ka daysid mayuu dhahay waayaha gabadhi ha baroorato habeen iyo maalin ha ooydo murug ha u bilaabato qol ha isku soo xirto walaalaheed iyo ha ku dul ooydo iyo hooyade warxuu taraahe odayga warkiisaa dadka dhanba ka amar weyn wixii waqtigii isguraba waxaa la gaaray gabadhii xilligii odaygii loo aroosi lahaa waa lagu mehriyey waa loo aroosiyey aroos kaala aragaa loo dhigay laakiin qofaadan jeclayn hadduu mashriq iyo maqrib ummadka inta kuu soo aruuriyo uu hoteelka dunida ugu qaalisan kuu dhigo waxaa kuu dhaanta kaad jeceshahoo bush ay isku aroostiin soo maaha adigu kabacdii arooskii markii la dhigay gabadhii iyo odaygii sidii ku aqalgaleen habeenkii koowaad markay aqalgaleen ilaan waa la isyaqaanaaye gabadha waa xishoonay soo maaha ninka waa ka cabsanay soo maaha waxay tiri aabbo ha iga tegin adiga aabbahay hala iigu waco aabbihii marka gabadhii markii la sagootiyey meesha oo laga galbinayay oo hoteelka eed ugu tagay oo meeshii gabadhiisii ugu duduciyey waxay tiri aabbe inaa i raacdid leeba jirtabo maya gabadhaydii ceeb waaye maku raaci kariya ay tiri mayay tiri aabbe marka hore guriga ii raac cabaar ila soo joog kabacdi iska soo laabo waayaha odaygii hooya i raac xataa ma jirto gabar hooyadeed ha i raacda dhahdo waa la arki jiray inkastoo soomaalida dhaqan ahaan
dee Soomaalidu way badan tahay anigu Soomaalida reer Muqdisho aqaano gabadha hooyadeed waxa laga yaabaa gobolada iyo yacni Hargeysa kale iyo in aan laga aqoonin maxaa la Djibouti oo kale iyo in aan laga aqoonin dee gabadhu ay ceeb ka ahayn waa laga yaabaa in sida aan anigu aqaan ay tahay waa laga yaabaa gabadhu hooyadeed inay habeenkii ay aqal galayso gurigeeda aado waa ceeb todobada basi aada bal hadaan qaldanahay iga soo saxa anigu reer Muqdisho saas aqaanaay ka bacdi odaygiya gabadhii sidii ku raacay markuu sidii ugu raacay waxay tiri aabo horta waxay bilowday inay ooydo baroorato qol isku soo xirto odaygii uu soo urdaa sidii odaygu inuu gabadha ku dhaqaayo gabadhii qol isku soo xirtay way baroorane dharkii xataa oo arooska iskama siibin maxaan suubiya de gabadha way xishoonaysaa inta xishoodku uu ka baayo u sabaro de markuu xishoodku ka bao ayada caadi ku noqon doonte de waa gabadhaadii oo adiga bay xaas ku taho meel ku joogtaay u sabaro aabihii gale saas miyaha waayahay uu yiri waa u sabraya sug gabadhii qolka ma soo baxayso odagiya qolka u garaacay markuu qolkii u garaaco wuxuu yiri gabadhaydii waxaan rabaa aaba inaan baxo waqtigii igu dhamaaday marka waa ku macsalaameena waxay tiri aabo cawada la ila joog de waa ceeb gabadhaadii oo aroos oo cawada la joogaaye gabadhaydii bal sug see kuula jooga magaalanta wuxuu dhahay markii dambe hay aabe waa aan baxaya laakiin xogaa yaraan kula joogayay bal aabo macaan sheedaanka iskanaaro oo intaan iska dhaaf waayahay odaygii qayb banaanka gurigiisa oo fadhiiste markuu fadhiistay oo wuxuu isku dayay gabadhii inuu ka dhunto gabadhii waa raadida aabahay ma jooga yaa raadidaha aabaha waa jooga odaygii wuxuu arkay gabadhii inuusan ka baxsan karin ka bacdi waagii aaba bari rabo xilli dambe la gaaray markii dambe hal mar waxaa dhacday in odaygii gabadha dhalay uu ka war helay dhawaaq gabadhiisii oo dhawaaqayda waaw qeelayda markuu maqlay gabadhiisii oo qeelayda wuxuu maagay dhankiima odaygiya gabadhii ka ceejiyo tiraq ku siiyay sidee wax u jiraan war hadda layba aroostee ma gabadhiyo xoog u sheegtay oo inta ceeji tiraq ku siiyay maadaama qol isku soo xidhaydo odaygan inay agtiis istaagtaba ay diid bal gabadhii odaygii ka cishuu maaga laba oday sheekada ha noqoto waayad odaygiisu u sii ordaayay gabadhii iyo ordayda ha ka hor timaadee odaygii aabaheed ahaa gacanta ha ka qabato ha qaylido af labadiisa dhawaaqdo ha dhahdo aabahay wuxuu dila ninkaygii waa dhintay wixii daris ahaa ee ka agdhowaa mala soo wada carari karo day gurigii arooska ahaa oo buuxo mala imaan karo inta haddii la fiiriyey waxaa horta usoo hormaray odaygan gabadha meesha uu ku guursaday waxaa ka agdhowaa wiilashiisa iyo gabdhihiisa waaweyn bahda kale wiil waxaa usoo hormaray dadkii isaga curadkiisa ahaa suu usoo ordaaye gabadhiyo wuxuu u yimid aabaheed gacanta ku dhagan oo dhahaysa aabahay ninkaygu iga dilay aabahay saayuu ii saaray ninkaygiioo nafta dhaafiyey toolbeelayey qasaarayey habeenkii aqalgalkaygu aabahay ninkayga iga dilay aabihii hadalkiyaaba ku dhagaba jawaab afkiisa waa kasoo bixi weyse waa yaaban yahay odaygii dhowr xabadooda ku taalo meeshuu maxaa la dhahaa ii sheeg uu yaalaa ka bacdi odaygii waaba dhowr xabad yaa ina dhihina waaba dilan yaho waaba ka uu dhaho meedkiisaa qolka ku dhex jira jiifka ninkii gabadha kii yacni ii sheeg ee ninka la dilay wiilkiisii ha cararee bistoolada doontee odaygii gabadha dhalay 5 ha ku tiriyo bararararararac 5 markuu ku tiriyey uu dhahay aabaha ana waa aan u qabaa waa uu maadaama uu dilay aabahey ana waa u qabaa sheekadii waxay isku bedeshay gabadhii habeenkii aqalgalkeeda aabaheed uu dilay ninkii aroosi lahaa dadkii waagiyaa ku baryay askaraa meeshii imaatay meedkii 2 meed gurigii arooska laga qaadaa ka dhacday gabadhii ooyin afka ha furato tolbeelaye waa waree waa qasaaraye aabahay wuxuu dilay ninkaygii ka bacdi waagiyaa bari waagii markuu bariyay
gurigii ma imaan karaanoo Fu'aad walaashiis iyo maxaa la dhahaa ii sheeg Fu'aad abtigiis ilmihii uu dhalay meesha ma soo buuxsami karaano kabacdi Fu'aad ma dhihi karo gabadhan Samra ah waa inaa la ii xirxiro ayadaa dishay abtigey ayadaa sabab u ahayd gabadhii dowladii ma baari karto ma la dhihi karo gabadha waa inaa la baaro gabadhii wax dil ay inay sabab ama ay ayadu shirqool u dhigtay ka dambeeyay ama inay ninkeeda dishay waa lagu waayay gacmaheedii la baar meel walba la baar gabadhii odaygii ma badilinba wiilkii Fu'aadan wuxuu iska soo jaray waa inaa abtigey ayadaa dishay la ii baaro bababa kabacdi maxaa dhici doonee gabadhii ayadoo aan aqal gelin oo odaygii ayadoo aysan nolol wadaagin ayba waxay heshaba dhaxal fooqal aqliya ninkii waa ka dhinte dee waxaa la yidhi ninkii dhinto kabtiisaa karoone maadaama odaygii uu dhintay waqtigu wuxuu isguraba gabadhii waxaa la yidhi xilligii asaymay qaaday diiniyan horta adigu wuxuu waqti muddo ka soo wareegata dhowr biloodba gabadhii dhaxalaa ku soo aaday sidii ay dhaxalkii u qaadatay aabaheed halkii uu ku dhintay ninkii halkii uu ku dhintay waxaa go-aan lagu gaaray gurigan ay ku soo aqal gashay gabadhu inaysan ka bixin oo ay halkeeda iska deganaato calafkeeda ku sugato maadaama odaygeediiba ay meesha ku weysay dan maxaa dhici doonahee odayga adiga fikirkaaga soo qor indhaweyn abo indhaweyn abaa indhaweyn fikirkaaga soo qor odayga caruuska yaa dilaa isleedahay kabacdi waxaa dhacday gabadhii maadaama la yiri gurigan ku noolow oo dee xoraad hoosaa rabta ugu noolow muddo markay gurigii ku nooleed gurigii waxaa ku soo wareegtay odaygii yacni wiilka abtigiis ahaa odaygii dhintay oo caruuska ahaa walaashiis waxay tiri gabadhaas gurigu maadaama guri weyn filo weyn uu yahay anigana dhinacaygaan ka degaa waayaha say dhinacii uga deganeed oo muddo uga degneed duq waayeela iska eede habeen show ayadoo kajab leh oo xilli dambe ah soo kacday ma arki karto Fu'aad oo meeshaan inta darbi ka soo booday gabadhaan u imaanayo waxay tiri sirtaha fashiline bal tartiib kaadi badan waa loo gogolbadiyay labadan horta maxaa ka dhaxeeyo bal ogow ninkan habeen walba ganjeelka caadi uguma soo galee saq dhax markay tahay oo show darbiga ka soo booda ama gabadhan adigu dhuumasho ugu imaadaa duqdii waxay tiri allaylehe walaalkay geeridiisii labadaana sabab u ahaa labadaana qisadoodii magaalada waa lagu shaaciyey waa inaan sirtaas fashilaa wiilkii asagoo habeen gabadhii isku diyaariyey shukaansi show inay iscalfadaan ay rabaan ma fahanti dadka qaar jaceylkooda jaceyl waa dhaaf labada lamaane oo ma arkinoo adi oo Muqdisho gabadha hooyadeedna ilaa hadda xabsiga ku jirta ayaa maqlay wiilka adeerkiisna ka yiri haddana isqabaan aniga weliba xilligan dhoocisha ahana ayaa ninkan ka har haddii la ii indha guduudiyo hooyaday aabahe tib danbe mulis yaali jirin abooyga leex hooyaday aabahe taariikha ay dhigayaane haddana waxaan ba arkaynaaba hooyada dhinaaba liska jaraabo nin dartiisba allah ninkan waa nin bini aadan hooyada iyo aabaha laakiin adduunka wax kugu bedelaya ma lahan jacaylkan waxa waaye waa wax laga gudbi karo qof kale jeclaa kartaa ilaahay qalbiyada ilaaha gadgadiye adigu alcumuum labadan lamaane wacadkii ay galeen oo ahaaba wad iyo calaf waxaan ahayn jaceylkeena ka weyn ay ka mira dhalinooyaan duqdii booliska u balamise wiilkii oo ka soo boodaya darbiga ma la qaban karo xabsi dalaq ma lagu sii karo ma la dhihi karo waryaa adiga iyo gabadha Samra maxaa idinka dhaxeeyo waabaan xiriir lahaa jirne waabaan isjeclayn hadda wax naga dhaxeeya male kaliya inaa isla sheekaysano dadku aysan naga shakin leh bas aan imaade maadaama abtigayna uu dhintay dee gabadhan dad asxaab camal iskula sheekaysanaa warkaas ma jiraa la yiri gabadhiyaa la soo qabtay ayadana xabsiya dalaq lagu siiyay labadoodii waxa u bilowday cadaadis ama in yacni barashar la saaro oo la ciqaabo si ay isu fashilaan macnaha ay runta ama xaqiiqada dhabta ay u sheegaan wiilkii waxaa la bilaabay in aad loo ciqaabo dadka xabsiyada inta la geliyo wararka laga soo saarayo ama dambiyada inay qirtaan la rabo la bilaabay kabacdi wiilkii wuxuu yiri abtigay
waa qaa'in weynaaday allah u naxariiste waa qaa'in weynaaday gabadhan iyo doonaan dhahay lacagaan ku aruursi jiray lacagtaydiioo iga cunay ciddii meeshii ani uu gabadha iiga dooni lahaa asagiyaa issharaxay asagiyaa gabadhii doontay asagiyaa gabadhii la siiyey gabadhiina waxaa loogu sheekeeyey inaa anigu nacay inaa anigu balantii uga baxay in anigii aan ka safray ugu dambeyntiina gabadhii markay ninka la aqalgeli rabto ee wax walba ogaatay ani ayadu waxaan ku heshiinay in aabbaheed ay ka dhaadhiciso in aanan ninkan loo guurin aabbaheed si hoose iyo si dheerba way ugu sheegtay waxay tiri habeenna ma rabo maalinna ma rabo annaga si aan jaceylkeena uga mari dhalino aniga ayaa gabadhan qolka ay iigu sii diyaarisay oo aan sariirta qaybta hoose aan odayga duqa ah ee abtigay ah aan ugu jiray dhiiw kabacdi markii uu isira leele xural cayn aala aqalgalayna fod aan kusoo iriyoo yiri kabacdina anaa qaarijiye si aan anila ii ogaanin oo aanan u kashifminna haddee gabadhii af aabbaheedii iyaduna ciil u qabto af labadiisay dhawaaqday anigana waa aan cararay ayaduna aabbaheed markii ay tiri ninkaygiyuu dilay ninkii aabbaheedna waxaa dilay walaalkay abtigay uu dhalay marka xaqiiqada waxa waaye si aan jaceylkeena uga mara dhalino dembiyaa nagala galay aniga gabadhan si aan isku calmano ayaan odaygaas u qaarijinay aabbaheedna u qaarijinay labadoodii sidii xabsi waxay ku galeen 22 sano 22 sano kadib ayay xabsigii ka soo baxeen oo ay iscalmadeen oo ay isguursadeen abbaay ama aboo jacayl dartiis heerkaas ma u mari laheyd qiso waxaa jirta xaajigayga uu iiga sheekeeyey oo igu soo dhacday oo maraykan inay taan jeclahay ka dhacday haddii aan soo xifdiyo la ii soo xifdiyo ingilishka khatar kuma iye kastii al-abaadir iyo al-cimro lay aqaane aw xaaji hadduu sheekadaas iiga soo sheekeeyo waa idinkaga sheekeyna waa qisadan ka daranoo gabar jeclaatay nin xabsi ku jiray oo xabsigii ka fagsiinayso acuudu bikalimaatiillah oo jacayl mucjiso ah uuba ahaaba kaas shoo qisadii kale aan idin dhaha waa idinkuu kamilaana tanaa dheeraatay marka ku raali noqda ra'yigaaga kasoo dhiibo meeshaas kasoo indhaweynaanine haddaa Facebook pageka iga daawanaysid iyo haddaa YouTube channelka iga daawanaysid oo aad igu cusub tahay follow ii dheh pageka sidoo kalena haddaa channelkayga ku cusub tahay meesha guduudan oo taraaxadayda u eg taabo sidoo kalena haddaad Facebooka ku cusub tahay halkaan maradayda midda u eg ayaduna taabo follow ii soo dheh sidoo kalena haddaadan muuqaalka like saarin laabo oo like ii soo saar tan iyo intaan qisadan qiso xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa inaad ra'yadiina soo dhiibatiin jacayl ilaa heerkaas dhib ma u mari lahayd labadan lamaane ma ayagaa qaldanaa mise waa laga qaldanaa wixii aragtidaada ah qaybta commentiga igula soo wadaag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu